waayo su-aashan kale waxay ka timid dhanka Facebook ay nagala soo weydiiyey wuxuu leeyahay saa'ilkan salaada subax ayaan dukadaa maalin walba masaajidka aan ku xiranahay ninka sheekha imaamka ka ah aad baan u aqaanaa oo salaada ugu dheereeya sidaas daraadeed marka maadaama uu salaada dheereeyo salaad sunno ah ma sii xiran karaa oo waan ogahay inaan ka gaarsiin karo salaada koowaad ama ragcadda koowaad inaan ka gaarsiin karo waan ogahay sidaas ma samayn karaa okay meeshaan laba arrin ku jirto salaada kadibna salaada ma la xiran karaa okay qistaa dambe okay haddaan fahmay طيب salaada qofku markuu soo galo hadii salaada la aqimay salaad kale lama tukan karo masaajidda soo gashay haddaa sunno ku jirtid oo markii aad bilowday haddaadan ka gaarsiin karin inaad ka baxdid waay laakiin haddii adoo sunnada ku jirtid la aqimay maalan oo ogtid inaad gabagabayn kartid atixiyaadka maraysa ama sujuud u dambaysa maraysa dhammaystiro wax dhib ma lahan laakiin haddii hadii la aqimay adoo markii xiratay salaadaas waa ka bixaysaa tanaageey rasuul sallallahu alayhi wasallam ayaa shay wuxuu yidhi aqiimat as-salaa fala salaa illa maktuba tan hadii illa tan loo aqimay salaad kale ma jirayso oo kama qala sallallahu alayhi wasallam marba salaada la aqimay taas waa tan koobaad oo markuu soo galo waxa laga yaabaa labada ragcad sunnada ka horeyso salaad wax ka horeyso inuu ka wado marka waxaan rabaa inaan dhaho marka hadaa soo gashay imaamku salaada ku jiro salaadiisa la xiro markuu ka baxa kadib hadaa rabtid gadaal labada ragcad ka gud laakiin imaamka oo salaad ku jiro sunnaha tukanin qalad way taas wallahu a'lam okay su'aashaas marka waxaan jeclaan su'aal kale raacsado maadaama ninkan uu leeyahay sheekh si fiican isku baranay oo macnaha dhanka sheekhan cabasho ka yahay ayaa laga yaabaa imaamyada amba culimada salaada dheereynaya markasta oo ilaa heer xataa la barto diintu maxay ka qabtaa iyadan salaada horta general imaamka waxaa loo baahan yahay inuu imaamka u fududeeyo dadka ma'muumiinta uu yahay rasuul sallallahu alayhi wasallam nina uu yimid wuxuu yiri ya rasuulallah aniga shaqankii imaaday saana mucaadna salaada uu nagu dheereeya رسول صلى الله عليه وسلم معاد هذا وعنانه وعاد وعنانته وحكي أفتان أنت يا معاد تذكر ميا دين تكدريسة ميا صلاة كدريسة معناه هذا تاس علماء وحيران صلاة إنه قابيو إمامك وجنرال سبيكن لكن صلاة قارك وضع حاجة أو سنة إن لا دهري صلاة الصبح وكل حاجة ما دام قفك فريش يا رسول صلى الله عليه وسلم وديرين جري لكن أضو صلاة الصبح أضو ديرين هذه ظروف صبح هذا مثلا عنقة أو يوكله مركز الرسول صلى الله عليه وسلم حسين جرو قابي حودي جن مركز قارك وضع أنيس صلاة إن دهري لكن waxaa maqla cunug u inaa maqla sidan salaada ku gaabina generally imaamku waxa fiican salaada in salaad oo dadka ay dhibsadaan aysan noqonin salaad gaaban oo soo average ka ilaalinayo salaadaha qaar kood salaada subax oo kale sometimes salaadaha kale way ka dheerta waa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada uu ku dheeray laakiin general waxa loo baahan yahay ummad masaajidka lagu diro ama salaadaha lagu diro ma ahan wallahu a'lam